لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. maalmihii la soo dhaafay waxaan wada arkaynay sawirro iyo muuqaalo muujinaya ciidamada gumaysiga Yahuudda oo xoog ku qabsanayay kana saarayay shacabka Falastiiniyiinta guryahooda. Waxaan aragnay xadgudubyada ay Yahuudda u geysanayaan dibadbaxayaasha Falastiiniyiinta. Waxay duqeeyeen Falastiiniyiinta, waxay garaaceen haweenka Falastiin, waxay duulaan ku yihiin goobta saddexaad ee ugu barakaysan uguna qiimaha badan ee Islaamka, Al-Aqsa. marka waa iga su'aalee aaway dawladihii xuquuqul insaanka ilaalin jiray, aaway dawladihii Islaamka. badanka wadamada Carabta waaweyn waxay sameeyeen nooc ka mid ah bayaan ay ku cambaareynayaan weerarada Yahuudda ay ku hayaan Al-Aqsa. wadamo kalena waxay u yeereen wakiilada diblomaasiyadeed ee gumaysiga Yahuudda. laakiin mooryaannimada Yahuudda cambaareen oo kaliya ma ku filan tahay? Imaaraadka Carabta tusaale ahaan aan u soo qaadano wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Carabta Khalifa Al-Marar wuxuu sheegay inuu si adag u cambaareynayo isku dhaca iyo barakicinta khasabka ah, wuxuuna ku sii daray hadalkiisa in booliiska Yahuudda ay yareeyaan xiisadaha. laakiin hadalkan ma yahay cadaadis dhab ah oo diblomaasiyadeed? ayadoo saas ay tahay, Imaaraadka wuxuu ku maalgashanayaa malaayiin dollar la ganacsiga Yahuudda. lacagta kaga imaanaysa dawladda isku taga Imaaraadka Carabta Yahuudda waxay u sahlaysaa qabsashada iyo xadgudubyada ka dhanka ah Falastiiniyiinta. Masar waa tusaale kale, waa dalka Carbeed ee ugu dadka badan oo ay ku nool yihiin in ka badan 100 milyan oo qof. waxay hoy u tahay jaamacadda Al-Azhar. ciidamada Masar waxay la soo dagaalameen Yahuudda 4 dagaal oo ay ku difaacayeen shacabka Falastiin iyo inay ka xureeyeen qayb ka mid ah dhulkooda hooyo oo ay Yahuudda qabsatay. laakiin maanta muuqaalada askarta Masar oo kula ciyaaraya ciidamada Yahuudda xuduudda Siinaay ayaa meel walba yaala. halka wada shaqaynta Masar ay la leedahay Yahuudda dhanka amniga Gaza iyo Siinaay ay u socoto si aan kala go' lahayn. waana la mid wadamada kale ee Carabta sida Morocco, Sacuudiga iyo wadamada dariska. bayaanaad, tweets iyo cambaareyn oo kaliya, weli wax tallaabo dhab ah ama ficil dawlad qaaday ma jirto. kaliya dawladaha Carabta ma aha dawladaha ka aamusan dhibaatada loo geysanayo shacabka Falastiin ee waa inta badan ummadda muslimiinta ah ee adduunka oo dhan. ma ahan shacabka iyo dadka muslimiinta ah, laakiin waa dawladahooda kuwa afka qabsaday ayadoo la waxyeeleynayo goobaha barakaysan ee Islaamka. kama aysan muuqan qiiro, isku xirnaansho iyo taageerada dadkooda ku wajahan magaalada Falastiin iyo goobaha barakaysan ee Islaamka. Al-Aqsa waa goobta saddexaad ee ugu fadliga badan kadib marka laga soo tago Kacbada iyo Masjidka Nebiga. sidaas ay tahay, kaliya ragga, haweenka iyo carruurta Falastiiniyiinta ayaa la dulmay lana barakiciyey, waxaana lagu cidleeyey difaacidda Al-Aqsa. laakiin dadka Falastiin oo kaliya muslim ma aha. Qudusna Carabta iyo muslimiinta oo kaliya uma aha magaalo barakaysan ee aaway dunida inteeda kale. hagaag, haddii aan ka hadalno warbaahinta reer galbeedka, gardarada iyo xadgudubyada Yahuudda markay dunida u sheegayaan waxay ku sharxaan iska hor imaadyo, habeenno fawdo ah ayagoo ka dhigaya barakicinta iyo boobka Yahuudda waxaan waxba ahayn. tusaalaha ugu fiican waa BBC-da oo sheegtay in dadka mudaharaadyada dhagaxaan ku hayeen booliiskana ay adeegsadeen xabado caag ah iyo tubooyinka biyaha. halka runta ay tahay in Yahuudda ay weerareen Al-Aqsa iyagoo wata hubkooda. mana ahan warbaahinta oo kaliya kuwa taageera Yahuudda ee dawladaha reer galbeedka sidoo kale waxay ku taageeraan af iyo adinba. liiska wadamada taageera Yahuudda waxaa ugu horeeya Mareykanka oo Yahuudda siiya balaayiin dollar iyo hub casri ah, wuxuuna ka difaacaa cadaadiska caalamiga ah. heshiiskeedii ugu dambeeyana wuxuu ahaa heshiiska qarniga. xataa Yahuudda waxaa loo saxiixay xuquuqdii Falastiiniyiinta iyo Carabta. maamulka Joe Biden kama duwana kan Trump marka ay timaado ilaalinta iyo sii xoojinta xiriirka gaarka ah ee Washington iyo gumaysiga Yahuudda ay leeyihiin. waana la mid dalalka kale sida Canada, Ingiriiska iyo dalka Australia oo had iyo jeer si cad u hadla marka ay timaado xuquuqda aadanaha iyo dimuqraadiyadda ee fagaarayaasha caalamiga ah. laakiin marka ay timaado xuquuqda Falastiin, afkii baa juuqda gabay.